wafti ballaaran hogaaminaya gudoomiyaha golaha dhexe ururka OLF ee ka jira dowladda Soomaaliya Itoobiya ayaa maanta si heer sare loogu soo dhaweeyay magaalada Saxdheer ee ka wada tirsan gobolada Sool iyo gobolka Doolo waxaana ku soo dhaweeyay garaadka guud ee gobolada Sool Sanaag Cayn iyo gobolka Doolo Garajaan Garadaali waxgarad bulshada qiimaheeda kala duwan ee ku nool magaalada Saxdheer waftiga ayaa loo soo galbiyay gudaha magaalada Saxdheer iyadoo xaflad soo dhaweyn lagu qabtay hoyga uu garaadku degay magaalada waxaana ugu horeyntii halka ka hadlay odayaashii waxgaradka magaalada Saxdheer iyagoo la soo dhaweeyay waftiga mahadsantihiin waftida waanu soo dhaweynaynaa gudoomiyaha ururka golaha dhexe iyo xoghayaha iyo intiina kale ee madaxda la socota soo dhawaada ku soo dhawaada qasrigii boqortooyada maxaa la yiraahdaa Soomaaliyeed soo jireenka ahaa waan ku soo dhaweynaynaa waa ururka waa soo dhaweynaynaa runtii waa taageersanay markii hore haddana waa taageeri doonaa insha Allah runtii odayaal aad baan ugu faraxsanahay imaatinkiina waan soo dhaweynaynaa waxa xisbiguna uu ku mahadsan yahay imaatinka inuu yimaado Saxdheer iyo garaadkii iyo dadkiisa inuu yimaado runtii aad baan ugu faraxsanahay waxaana runtii muuqanaysa waqtigan xilligan sida aad noogu timaadeen iyo sida xisbigu u fakaraya inay si siyaabihi hore ka ballaaran tahay soo dhaweynta sida loo sheegay waftiga gudoomiyaha golaha dhexe hogaaminayo siyaasad la qabnaa siyaasad soo dhaweynaynaa idin soo dhaweeyay baadii soo dhaweeyay OLF anuu markii hore aan taageersanay waxaan ku taageersanay waxay hadafkeediiba hadaf cadaan ahaa waayo dad gumaysi diidaya oo wadankoodii gobonimadiisa u halgamay ahaayeen taasaan ku taageersanayba waxa iyaguna dhinacooda ka hadlay kana warbixiyay ujeedka safarkooda gudoomiyaha golaha dhexe ururka OLF iyo xogayaha guud ee ururka OLF baan uga mahadcelinaynaa garaadka iyo dadka ku wareegsan ee ehelka aad baan ugu mahadcelinaynaa inta kadib anagu waxaan ka nimid Jigjiga socdaalka nagu wuxuu ahaa inaan halkan soo gaadhno qasadkiisu wuxuu ahaa inaan halkan aan joogno soo gaadhno alla garaadka la kulano waxa ugu muhiimsan ee aanu la soconay inaan horta salaano oo aan u nimaadno gurigiisa ugu nimaadno oo madaxda ururka ay gurigiisa ku soo booqdaan maadaama uu ka mid yahay mas'uuliyiintii rasmiga ahayd ee dhaqanka ee ururkani lahaa waxa kale oo la soconay waxa weeyaan la tashano oo waxa hadda in hor yaala hawl oo fara badan iyo geed socodka aan ku jirno iyo dalkan iyo dadkan iyo meesha u soconayaan iyo sida looga shaqeynayo inaan kala tashano waxa kale oo soconay inaan helno waxa naga maqan deegaankan balaaran oo dabcan anu fikir inta leedaana ka haysanin dhulku inuu inta leeyahay maanu ku xisaabtamayn gaari four-wheel drive in 10 saacadood ku wado inaad u maadana dhulku ku dhex jirto aad bay عجب تاي لكن waxaan u soconay baa inaan miisaanka dhulka dadka noloshiisa waxay dadku haystaan waxa ka maqan laga wada hadli karo waxay waajib xaq u lahaayeen maqan in la raadiyo u baahan sida waxa loo wada raadin karo iyo waxa ka weyn ee naga wada maqan ayaa socdaalka naga asalkiisu ururku wuxuu jira qorshayaal badan oo magaranaysa mustaqbalka sidii loo design gareyn lahaa mustaqbalka siyaasadeed wadankeena soo noqon lahaa shirar arrimahaas lagu dejin doonaa soo socda shirarkaasna waxa gundhigu ah magaranaysa in dadku ka wada tashadaan oo wax tashi
midaysan lagu gaadhay in maaragtay lagu guuro taasaa kow ka ah gabagabadii waxaa dalka soo afmeeray garaadka guud ee gobolada sool Sanaag Cayn iyo gobolka Doolo Garajaca Garadani oo fikirka la jeedsado oo ilaahay haduu ku rooyin waxaynu doonayno aynu cadayno ma dhacdeen cabsi baa saarayd dil iyo waxaa ka daran cabsida ilaahay inaga dulqaaday maanta aynu isugu imaan karayno danaheena kaga tashan karayno inagoon cidna ka qarsanayn xaajadeena allaha saamaxle isbedelka inoo sameeyay dabaysha caafimaad inoo soo rogay alxamdulillaah rabbil caalamiin gudoomiyaha golaha dhexe xoghayaha arrimaha dibadda ee ururka xubnaha golaha dhexe iyo mas'uuliyiinta kale ururka socotaba waa idinku soo dhaweynayna waa tuuladiin iyo waa ilaahay haduu ku roon yahay waa kullayba inaad xidigaha nala daawataan oo banaan nala seexataan oo kaneecadu nala keen cunto waa idinku soo dhaweynayna insha Allah taala aad iyo aad baan ugu faraxsanahay imaanshihiina la joogiina aragiina taladiina intaba waa ku faraxsanahay sidaan loo soo sharafteen Allah idin sharfo mid iyada waa ka mahad celinayna halgankii waa ka mahad celinayna halgankii lama soo marin rag badan baa ku dhintay rag badan baa u dhintay waxa loo dhimanaya Soomaali guud bay ahayd waxa loo dhimanayay waxa maanta aynu doonayno way ahayd oo dadkani in ay dalkooda iyo deegaankooda ay xorriyad ugu noolaadaan rag badan baa ultimate sacrifice u bixiyay oo noloshoodii u huray oo maanta soo noqonay marka cidii hogaaminaysay waxay ahayd ururka ONLF waa ka mahad celinayna intii dhimatay halganka ku dhimatayna Allahu naxariisto ku shahiiday shuhada bay ahayd halgamadii ka horeeyay daraawiish iyo Axmed Guray iyo iyana sidaas oo kale umad Soomaaliyeed bay u halgamayeen annaga nologama dhaqsiyo halganka iyo Soomaalinimada iyo mar walba center baan u nahay oo waa jecel lahay oo maalin dhaweyd waan u maleynaya qabri dahra shirki ninkii dadkan u hadlayay wuxuu yiri hadaa daasheen bahasha lagu soo wareejiyay annaga halka ka sii wadayne ilaahay dadtiibaan aaminsanahay dadkani in ay iyagu go'aankooda yeeshaan hadii la guurayana sida gudoomiyuhu sheegay ay la guuraan hadii la deganaanayana wax lagu isku og yahay lagu deganaado hadii la kala guurayana wax lagu kala guuro waa mabdaa waa aaminsanahay waana ku noolahay waana ku dhimanayna ilaahay haduu ku roon yahay kalmadan dadku ay xasaasiyada ka dareemaana oowdana annagu kama qabno xasaasiyado wiilkii hooyada Faadumo dhashay weeyo ilaahay haduu ku roon ogaadeen xasaasiyad kama qabno iyo ogaadeen iyo in la yiraahdo waa wiilka yagi naga yaraaye bahdayadaba u yaraaye ilaahay haduu ku roon yahay hadii magaciisa la isticmaalayo Soomaali isticmaalayso dhibo ma aragno waa soo dhaweynayna insha Allah taala muhiimku waxa weeye siyaasadda lagu guurayo xagee loo socdaa cadaalad ma la heli karaa sidee cadaalad loo heli karaa qaabkee qoomiyad badan baa Soomaalidu ay la nooshahay sidee bay iyadu midnimadeeda ilaalin karaysa oo dadkan hadaan midnimadeeda iyo cadaaladooda la ilaalin way kala dusayaan kadibna waxa dhacaya maanta waxaynu haysanaa opportunity weyn oo sagaashamaadkii mar inoo soo martay way inaga farabaxsatay waxay inooga farabaxsatayna waxay ahayd midnimo la'aan maanta inay mar labaad inaga farabaxsatana ma rabno marka insha Allah taala waynu ka sheekaysan waynu rogrogi ilaahay baynu tala saaran sidee ugu wanaagsan oo dadkan idinka siyaasiyiin u ah annana dhaqan baanu nahay geedkaanu idin fadhinayo hadaanu aragno inaad khaldantiin waa idinku qaylinayna waxaan waa la lumiyay taladii reerka haddaad hagaagsan tihiin waa idin garab istaagaynaayo hareerahaanu idin kala wadaynaayo Soomaalidu waxay tiraahdaa reer maad haddaan ka hore iyo ka dhexe iyo ka dambe isu qaylin way kala lumaan inaan la kala lumin weeyo oo ka jigjiga jooga iyo ka gobolka Doolo jooga iyo ka koonaha jooga ay hadaf ka dhaxeeyo hadaf ay wadaagaan oo ilaahay ay u siman yihiin oo wada ilaashanayaan uu jiro isbedelkan wadanka ka dhacay waa soo dhaweynayna soo galistiina iyo xeerka cad ee aad ku soo gasheen Soomaali baanu doonaynaa hadafkayga kamaanaan guurin waxaanu hadaanu ku naloo ogol yahay inaan nabadgelyo ku helno ku raadinayna
waa ku soo dhaweynaynaa xukuumadda jirta nafis badan baanu ka dareen waliba waxqabadkii ugu horeeyay deegaankan soo gaara yaa naga soo gaaray oo nabadaynta magaalooyinka aad soo maraysaan ilaa ay dukureen dhibaatooyinka ka dhacay waa isu taagay madaxweynuhu khayr Allah siiyo waa wahaynaa waa abaal ilaahay hadduu kuu roon yahay hase yeeshee xisbigu nama soo gaarin marka haddaad leedihiin booska xisbigaanu buuxinayna waa wada hadlaynaa insha allahu tacaala soo dhowaada mar labaad iyo mar saddexaad khayr iyo barwaaqaanu idiin rajaynaynaa minankiinii weeye gurigiinnii baad joogtaan